jacaylkaada haddii uu ku diido maxaad samayn lahayd? Waan diiday inaan guursado qof kale. Arday Masaari ah ayaa inantii uu jeclaa gowracay kadib markii ay diiday guurkiisa. Albaabka jaamacad ku taal Masar ayay ka dhacday dhacdadaani. Arday Masaari ah ayaa gabadh ay wada haasaawi jireen ku gowracay afaafka hore ee jaamacadda Mansuur ee waqooyiga Qaahira kadib markii ay diiday xiriirka ka dhaxeeyay inuu sii socdo. Dadkii wadada marayay ayaa la yaabay ardayga xilli uu ku gowracayay afaafka hore ee kuliyadda farshaxanka ee jaamacadda Mansuur kadib markii uu dagaal afka dhex maray inta uu falka sameyn inanka, iyadoo ay dadka isku dayeen inay qabtaan wiilka balse ay ku guuldareysteen. jacaylku waa naxariis. Qofka ku jecel waxa uu kuu sidaa galgacal, balse waxaa la yaab ah qof sheeganaya inuu ku jecel yahay haddana ku dhibaateynaya. Sidee wax u dhaceen? Ugu horreyn waxaa soo ifbaxay in dagaal afka uu dhex maray arday magaciisa laga soo gaabiyey M iyo saaxiibtii oo iyadana magaceeda laga soo gaabiyey N, taasoo markii dambe wiilka uu qoorta ka gowracay gabadha ay wada socdeen ee xiriirka jacayl ka wada dhaxeeyay oo isla markiiba ku dhimatay goobta. Baaritaano la sameeyay ayaa shaaca ka qaaday in wiilka uu sheeko jacayl la yeeshay gabadha oo degneed magaalada Maxalla, waxna ka baratay jaamacadda Mansuur ee dalka Masar. dad goobta joogay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wiilka uu fadhiyay meel jaamacad u dhow. waxaa goobta soo martay gabadha oo jacaylka kala dhaxeeyay wiilka ayaa u soo orday dhanka gabadha. waxa uu isku dayay inuu si xoog ah u kaxeeyo inanta, balse ay iyada ka diiday inay raacdo. isla markii waxa uu qaatay go'aan ah inuu gabadha dilo. waxa uu haystay mindi, kama uu labalabeen ee waxa uu midida la soo aaday dhanka inantu jirtay, waxa uuna ka saaray qoorta. waxaa mar qura soo wada orday dad ka ag dhowaa goobta uu falka uu ka dhacay. waxay qabteen wiilka isaga oo miirka ka maqan yahay, waxayna ku wareejiyeen booliska oo goobta soo gaaray. daawada qofka aad jeceshahay haddii uu ku diido maxaad samayn lahayd? ma ogolaan lahayd in qofka la guursado qofka aad jeceshahay? jacaylku waxa uu baraa dulqaad, naxariis. naftaada iyo jacaylka haddii ay tartamaan waa inuu jacaylka guulaystaa.